wasiirka wasaaradda deegaanka Soomaaliland Shukri Xaaji Badnare oo maalmihii ugu dambeeyay ku sugnayd gobolka Sanaag ayaa maanta waxay xadhiga ka jartay dhismo cusub oo wasaaraddan ku yeelan doonto gudaha magaalada Ceerigaabo waxaana munaasabadii xadhiga jarista xaruntan cusub ee wasaaradda deegaanka gobolka Sanaag goobjoogna ay ka ahaayeen madaxda maamulka heer gobol iyo degmada Ceerigaabo shaqaalaha wasaaraddan iyo marti sharaf kaleba waxa ugu horeyn halkaasi ka hadlay maayarka Ceerigaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo kusimaha badhasaabka gobolka Sanaag Naalay Axmed Jaamac waxaana hadaladoodii ka mid ahaa waxaan la joogay wasiirkii daaqay horumarinta reer miyiga Shukri Xaaji Ismaaciil Bandare nasiib waxay noqotay alxamdulillaah xafiis qurux badan oo loo dhisay daaqa in xadhiga ka jarto waxaan leenahay Allah inoo barakeeyo halka waxaan maanta xadhiga kaga jarnay xafiiskii heer degmo iyo heer gobolba ahaa ee loo dhisay wasaaradda deegaanka waxaan leenahay xafiis khayr qaba Ilaahay inooga dhigo kii dhuxusha joojin lahaa Ilaahay inooga dhigo isuduwaha wasaaradda horumarinta reer miyiga iyo deegaanka gobolka Sanaag Xuseen Talaahi ayaa isaguna faahfaahin guud ka bixiyay dhismahan iyo qaybaha uu ka kooban yahayba waxaana ugu dambeyn halkaasi ka hadashay wasiirka wasaaradda horumarinta reer miyiga iyo deegaanka Soomaaliland Shukri Xaaji Ismaaciil Bandare runtii xafiiskani wuxuu ka mid yahay 11 xafiis oo wasaaradda loo dhisay ilaa 2015 iyo 16 ilaahay waxaan ka rajaynayaa in halka gobolkan uu ku faa'iidi doono oo dhuxushaas uu sheegay oo gudoomiyuhu sheegay in kii joojin lahaa inuu noqdo aad baan ugu mahadcelinayaa gudoomiyaha iyo staafka oo dhan ama shaqaalaha oo dhan waa Cabdullaahi Xuseen Darwish waa Bari TV Ceerigaabo.